ilmihii yaryarka ahaa oo waajibka koowaad kaa saarnaa haddaad u didaashidoo tiraahdo didaalkooda waxa weeyaan inay baasaboorro qaataan oo waddan gaalo la geeyo halkaa lagu barbaariyo oo lagu koriyo oo hadhowta gaalo ay raacaan ilaahay subxaanahu wa tacaala mas-uuliyadda ugu saara waa dayacda ilaahayna ogamaada baqin carruurtaada waxaad la raadinaysa inay baariyaal kuu noqdaan waxaad la raadinaysa inay dalkooda iyo diintooda iyo inta waalidkoodba anfacaan adiga ayaana haadaan ku riday markaasaa ilaahay baarinimadoodii iyo wanaaggii aad ka heli lahay ilaahay haadaan kaaga riday adiga dad ayaa soo celiya oo hadda ku hawlan siday ku soo celin lahaayeen kuwana waxay soo laabteen ayagoo fara bannaan halna aan wadin oo haddayba waxay raadinayaan inay guursadaan oo reero cusubba abuuraan bay soo laabteen kuwana hal iyo laba ayay la soo carareen oo ay gacanta ku hayaan intii kale waa ka soo tageen khudbahoodoo aan halkan ka akhriyey tarbiyada carruurta aan oga hadlahayey rag baa go'aan ku gaaray inay soo celiyaan reerahoodii soona celiyey go'aankaas qaatay intay dhegaysteen kuna guulaystay inay soo celiyaan kana qancay inay dibdaba u celiyaan wax waqtigiisu kaaga lumi xaggay nolol ku haystaan xaggay ku fiican tahay caawa haddaa halkan ku dhimatid ayaguna xagga joogaan gaalku wuxuu u sheegayana ay aqaataan badbaadi maysid wallaadan badbaadahay adaa geeyey adaa u dooray adaa dejiyey adaa uga soo tegey ilmihii baa xagga jooga anaa halkaan jooga ma ku anfacayso xoogaa yaro luflufiyo hadday kaa soo gasho man taraka shay-an lilaah cawadahu allah shay ilaahay dartii qofkii oga tagaa ilaahay beddel ka fiican buu siiyaa tawakkal calaa rabbik rabbigaa tala saaro go'aan gaar soo jaf waxbaa ku reebi waa la ogaaday wixii nala daldalahayay oo nala aruurinahayay oo qaxootiyo naloo samaynahayay oo guryo la dejinahayay oo baasaboorro la siinahayay dan baa nala ka lahaa dantii nala ka lahaana haddaan ogaani waagaa nugu baryey haabhaabashadu waa egta haatan dabadeed in la haabhaabto way kuu furan tahay ka haabhaabo ilaahayna oga toobadkeen wixii aad samaysay ciyaalkaas wax walba iskuul baa loo diraa mana ka celin karti kuwa u dhigaya iskuulka waa gaalo ayagaa u dhigahaya habeen iyo maalin ku shubaya waalid inay wax ka dhagaystaan waqti uma hayaan galab bay soo dhacayaan maqribkii waana daallan yihiin wixii macallinku u sheegeen bay qaadanayaan ciise waa ilaah ciise waa ilaah ciise waa ilaah ayaa habeen iyo maalin loo dhigaya adiguna waxaa rabta inaad ka dhaadhicisid ciise ilaah maaha meesha lagu dagaalamayo lagu loolamayaana waa waddankii laga aaminsanaa ciise waa ilaah weeye maahan kii laga aaminsanaa alle waa alaxad samad maahan meeshii laga aaminsanaa u fiirsa marka haddaad cayaarta u geshid garoon kale oo dadka iskale ay ku maamulayaan goolka waa lagaa dhalinaya meesha lagu loolamayo ilmaha la iskugu haystaay maahan meel alle laga aaminsan yahay meel ciise laga aaminsan yahay weeye soo ma jeed ka badbaadsa marka hadaa daminka shabaqa u soo galade saa uga bixi lahayd ka shaqee waxaan aad oo lagu celcelinayaa odayaal badan iyo adeeryaal badan iyo waalidiin badan oo halkaan fadhiya ilmihiina weli ay maqan yihiin waa digniin naftiina ubnaxa cidna ha u danaynina qabriga marka la idin dhigo wallaahi nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay maa min cabdin yastarciihi illaahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahwa gaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi aljanna qof dhimanayaa ma jiro marka uu dhimanayaa isagoo dayacay dadkii uu mas'uulka ka ahaa oo ilaahay uu raaciyey ilaa jannada waa laga xarima maxaad ka dheefaysaa marka inaa ilmahaagii janno la'aan ku noqotid maxaad ka dheefaysaa cadaabku ku cuno halkaa marka inta lagu dhigo iilka ah oo dhagaxaanta iyo ciidda saa lagugu rogo dad iyo qaraabiya rixim ay kaa dareeraan xagga aysan qabrigu waasic u ahayn xaggana aadan isku gedin karin madaxana aadan la soo bixi karin halkaa lagugu hayo waa waraya hala ii gurmadana aynan suurtoobi karin halkaa lagu weydiiyo ku yidhaha hebel iyo hebel adigu waa dhashay meel ku sheeg ciisaa la bareeday adigaa geeye ka warran lagu yidhahdo maxaad ilahay hortiisa ugu jawaabaysaa maxaa ilaahay hortiisa ugu jawaabaysaa damac adduunyaa kugu jira ilaahayna subxaana wa tacaala damaca kugu jira ilaahay ma kuu barakaynayo waxaad dayacaysaa waa wixii ugu qaalisanaa oo adduunyada maal aha oo la shaqaysan lahaa waa awlaad saalixiin ilahay inuu kaaga dhigo ayaad dayacaysaa walaalahood iyo qaraabadood iyo ahalkooda gaajada ha la qabeen baahida ha la qabeen soo celi wixii dhaqan celin u keeni jirta u keen mar baan waxaan booqday meelaha dhaqan celinta niman baa waxay yidhaahdeen annagu ma qabanna ilmaha aan qabanna ka mid ma ahan ilmo dibadda laga keena oo maxaad u qaban weydeen waxay yidhahdeen ilmaha dibadda laga keenay dhaqan celintooda waa dhib badan tahay luqaddii la fahmi mayno
dhibaata naga haysata cunada ay cunaan ma hayno wax ay cunaan ma hayno ayaga dhan waxa weeyaan haddii inta la garaaco wax yar meel looga dhifto meesha dhan waa baranaysaa sidii waxa sun la cunsiyo jirkooda wada dildilaacayo weeye waxay igu daraalaya waxay yiraahdeen maantoona haddii wax loo akhrinayo la wado wax ay fahmayaan oo badani ma ay jirto marka waxaan rabnaa ilmaha aan dhaqan celinta u sameeyno kuwa wadanka jooga markiiba si sahlan baa loo leylin karaa kuwa kale mada waxaad arkaysaa ilmo waaweyn oo xoogooda iyo haybadooda iyo quruxdooda ayaabaysid haddaad in yar wareysatidna bar caqli aan lagu arkin oo midka baadiyaha ariga ku raaca intuu la sheekaysto iska kaxaysan kara ayaga dhanbaba soo ma jeed la yaabaysaa xoogooda markaa aragtid isay u soconayaan sidii wax garbab qaba waa naxaysaa ilmahaas waalidku say u dayaceen baa la yaabaysaa oo ay wadanka ugu ilaalinayaan miyaysan arag ilmaha wadanka jooga siday u fakarayaan iyo caqligooda iyo xikmadooda iyo adaygooda iyo siday qaraabada u kala yaqaanaan iyo abtirsiga miyaynan arag maxay ugu hayaan meesha ugu celinayaan war ka soo kaxeeya qaraabanimo iyo abtirsi iyo ahli idinka raaci maayo diinna idinka raaci maayo dadnimana ma ahan inaad waxa noocaasa aad nacfi adduunyo ka raadisaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala ha nooga soo aruuriyo الله ينوسو هنوي أو دعينا والدين تأتاجن مر والبقينا صاك حيان دعاء وكال مننا إلهي أوسو صخر إلهي أوسو سهل سبحانه وتعالى وحتكون ذا شامركة تقوض الصواب كوجوين وحويان إلهي سبحانه وتعالى إن أكد ذا كسيه الفوز بالجنة والنجاة من النار إن النار كبد بادي جنة أنهشت تقوضوا تاس أيكو جارسينيس تقوض هدي اللي ضيعه قول له وايوه وحلا وح مصائب الكاس كإيمانية إلهي وحلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هذا يدك مقالوي كدجن أهل القرى قاع وحويان إلهي كبقان وإلهي سبحانه وتعالى رميان وكعب صدان وحان أفرينا بركاتك يا خيراتك أيان أفرينا حق السماء يا حق الأولك كل والله غفرين